بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سو دوادا ولالها سي اف بلشو كسو دوادا عشر كان درسي كان وحن ربائنا إذن كبروا على مدها حسدك كلا دوان حسدي حسد لما مداهن حسد كان وحن قف بلا آدم كردعه بانك ورميا أو حسدك قرابدا حسدك ددك كودو قرابدو كليا ما هن كوا أديق وداكتان وودا دلتين قرابدا وحا كودو وايا أما أصحاباتهين أو واحد وداكتان أما قناعسي أما وحبرشو أما هولا كالي يكوا ودا دلتين حسدك قرابدو ومدك ددنسيي عذابك الدنيا ولا لبدنا الدنك كنا المانتي والله نونا عذر aan dhamaan iyo wuxuu yahay la fahansanay wuxuu tagay qofkaan isbitaal hebel dal hebel isbitaalkan daawadan naxna tijaana malahan waxa ku haya waa xasadkuna kala duwan waa xasadka qaraabada calaamadaha tusaya حسدك قرابة إن علامتها دمانتون لغا ودا هلنا شرط معنا هل مد حدي لغا هلا خلاص حسدك قرابة كوهية هورا لو يري الأقارب عقارب بعربت ترادا قرابة وهنقرلها مرض انت كوغلا كعنية يعني وح كافق معنا هدي مس أما أبيس هل كاميرا يسدي وبس كإلى الإنسان هو بدلي سهل هنقرلها أدو أوجين بوكسو قليا مرض وكل حقليا نب بوكسينية قرابدي markay way ku dhow yihiin wad walaalsanaysaa waa eheleysanaysaa waa taageeraysaa ayaguna waxay ka shaqeynayaan lugooyadaada mana ogid adigu miskiin ilaahay baa taa daacada iska taa koow calaamada koobaad waxa weeye inuu qofku isku arko goonjab oo hal dhinac oo kaliya ah bas madaxa goonjab de qofku intaan inay xanuunayso jaban tahay hal dhinac ama midig ha ahaato ama bidix ha ahaato hal dhinac ba inta badan goonjabkaadu iyo hal dhinac ba ku xanuunaya madaxa hal dhinac ma aha dhinacaan u wareega ama dhinacaan ka wareega ma aha hal dhinac bas baa goonjabkaadu yahay waa calaamada koobaad calaamada labaad inaad isku aragtid culays xagga dhaqdhaqaaqa garbaha culays garbuhu inay ka saaran yihiin haddaad damacdina wax qabsatid maanta inaad isqasabtid oo shaqo aad qabatid haddaad rabtid oo shaqadii aad samaysid waad ka shalaayaysaa maxaa shaqada u qabatay gardaduu baa lagu hayaa adiga dhanba garbaha oo culaysad ka dareentid ama madax wax culus ka saaran yahay culays aad u daran waa xasadka qaraabada waay qaraaba ku xasaday waxa laga yaabaa qofkaan jirkaada inuu ku soo galay il ka heshay san dhibaatay ku soo galin ku dhibaatay yaani qof baa ku ileeyay ishiisu ma ahayn il adiga dib ku ah yaani qof waxa waaye inuu uu ka helo qofkaan waa cajibisay ishiisi baa kugu dhex nool marka laakiin wax dhib kugu ma hayso waligiis sidaan arintu ahaan mayso maalin maalmaha kamida ishi xaasidnimo isku bedelaysa haday qaraabada ka timaadana dhibku waa laba jibaar nasallallahu alaafiya calaamada saddexaad inuu qofku aad iyo aad u haamaansado haddana adoon caajis dareemeyn hurdo fiican qaatay hurdo kuma hayso si fiican u seexatay xalay hurdo fiican waqti badan qaatay saacad badan baad seexatay kuma haya caajis oo caadi baa tahay awooddaada enerjigaada waa full dana iska haamaansanaysaa afka baad kala haysaa daqiiqadiiba inta jeer baad haamaansanaysaa waxaad weligaa isku aragtay hore iskugu aragtay maahan oo waa wax hadda kugu soo ziyaaday waa xasadka qaraabada calaamadaha lagu garto way sidoo kale inaad dareentid wahsi joogto ah dhamaad lahayn shaqadaadina ka reebay ilaahay cibaadooyinkiisana ka reebay adiga dhanba qof yani qof waxa noqotay habsaan adiga dhanba oo wahsanay waa calaamad lagu garto xasadka qaraabada sidoo kale deganaansho la'aan joogto ah waxa aad ka fakaraysid lama yaqaan har iyo habeenna waa fakaraysaa dhibaato dhanba hortaada lagu soo dhigay biri maxaad cuni doontaa adoo haddana wax haysta sanad kadib maxaad samayn doontaa ganacsigan ma ku joogi doonaa caafimaadka adiga dhanba stress fikir baa kugu abuurmay maanta dhan waad fakaraysaa deganaansho la'aan baa kugu dhacay cabsi joogto ah waxaad ka cabsanaysaa mustaqbal waxaad ka cabsanaysaa wax aan u baahnaynba mudnaynba in sida looga fakaro baad ka fakaraysaa oo cabsanaysaa xasadka qaraabada calaamadaha lagu garto xasadka qaraabada calaamadaha lagu garto waxa kamid ah walaalayaal caradaran wax sababana ma jirto qofkan waa xanaaqsan yahay mar walba wax yar haduu arko ka xaroonay
qof caraysan baad waagi hore waxaa jirtay qof furfuran qof bashaasha qof caadiya qof dulqaad badan dulqaad laan baa kugu dhacday oo dulqaadkii waa kaa guuray cara daran baa waa mar walba waad caraysan tahay sabab u arrintaasi keentay ma jirto sabab la fahmi karo ka xanaaqday ma jirto laakiin waad xanaaqsantahay 24 saac waa xasadka qaraabada waxa lagu garto xasadka qaraabada waxa lagu gartaa qofkaani in uu jeclaado inuu ismatajiyo xilliga uu quraanka dhageysanayo tusaale kale quraanka ayaad akhrinaysaa ama waad dhageysanaysaa oo earphone baad ku dhageysanaysaa ama TV gaad ka shidatayba quraan ma maqashay ma akhrisayba waxaad jeclaanaysaa inaad far isgelisid oo aad ismatagtid inaad ismatajisaad jeclaanaysaa markaad quraanka dhageysanaysid ama aad akhrinaysid waa calaamad lagu garanayo xasadka ku biyo dhigay ee qaraabo xageed kaaga yimid sidoo kale inuu qofkaani dareemo kabuubiyo jirkiisi yani waxa ka kacay xadda kacayso jareeraca ku jajabaysa qof jareeracada wax sabayna ma jiraan waa jareeracoonaysa ama jirkaadii magni waxba ka qabsanaya waa lagu dhufsanaya marka waa calaamad tusaysa xasadka qaraabada sidoo kale waxa kamid ah xasadka qaraabada xanuun joogto ah xanuun ma dhamaado xanuunkaadu hadba meel waxbaad ka sheeganaysaa maalin walba waxbaad ka sheeganaysaa meel un baad ka sheegan Allah halkaan ay xanuunayso bari halkaan ay xanuunaysa bari wax kale kugu soo siyaaday xanuunadiiba waxa jirkaada u noqdeen saldhig adiga dhan ay xanuunadu saaxiib xanuunkan hada ka biskooti xanuun kala kugu iimanay xanuun waay waa xasadka qaraabada waay balaaya haday kugu dhacayso banaanka kaaga timaadaan maqli jira laakiin haday balaayo boodkaada ka bilaabato waa musiibo kuwii adigu aad biilaysay kuwii adigu aad wax taraysay kuwii aad khayrka la jeclayd haday xumaan kula jeceliyeen ka war haday adiga ku taba dhigteen ka waran haday ku xasdayaan ka waran calaamadaha lagu garto xasadku waa kala duwan yahay xasadka dadka ku dhow ee qaraabada inay ku xasdeen calaamadaha lagu garto oo lagu fahmi kartay in lagu xasday qaraabana ku xasday waxtarkaada ka xasdayaan horumarkaaday necib yihiin adiguna horumarkooda jecesha qof aad horumarkiisa jeceshahay asaguna horumarkaada necib ka warama walaalayaal waa xasadka qaraabada waa qaraaba haday kugu kacdo khalaas way ma aha dad calaamadahan dareentay inaan taa raasitay adaa ay xastay kii aan tuhmayay waa ma aha taas hawsheedo waliga qaraabo lama diriro waxa la yiraahdaa qaraabo dagaalkeed xataa qofka ku guuleysto waa jabay saas ku jabay waa laga insaxaaba waa la iska ilaaliyaa dantaada la raacdaa waa la istaaweeyaa quraanka isku daawee diinta isku daawee ruqyada isku daawee intaas bas garabkaada ah inta garabka dhiga insha Allah ta'ala aad baad u mahadsantiin YouTube-ka si af bulsho subscribe inoo dhaha like muuqaalka dhaha si share gareeya Allah caafimaad iyo cibaado suuban hayna wada siiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.